qofka hadduu rabo inuu istighfaar sameeyo ama hadduu rabo inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto astaghfirullah kaliya muu dhahaa mise muxuu sameynaa? alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. walaala joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. maantana insha allah waxaan ka sheekeynaynaa siyaq alistighfaar. qofka hadduu rabo istighfaar inuu sameeyo muxuu dhahaa? walaalayaal, siyaq alistighfaar ama qofka siduu istakfirullah u dhahaya ama ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo way kala duwan yihiin, wayna badan yihiin. maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago 10 nuuc insha allah tacaala. buugii qalin soo qaado, meel ku qoro, si fiican u xifdi, walaalaha kalene la sii gudub, adigana practice garay maalin walba insha allah. tan ugu horeyso waa iska simple and easy. astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. qofka maanta dhan wuu ku celceli karaa, laakiin qalbigiisana inuu joogo waa markuu dhahayo. tan labaad, astaghfirullah wa atuubu ilayh. tii koobaada wax yar ku dartay, astaghfirullah wa atuubu ilayh. maantana carabkaaga ku celceli. tan saddexaad, allahumma ighfir lii allahumma ighfir lii allahumma ighfir lii. ilaahu ii dembi dhaaf, ilaahu ii dembi dhaaf ku celceliyadane. tan afaraad waxaa waaye allahumma ighfir lii dhunuubii. ilaahu ii dembi dhaaf dembigayga. tan shanaad, allahumma ighfir lii khatii'atii wa jahlii wa israafii fii amrii. mar labaadaan kusoo celinaa, allahumma ighfir lii khatii'atii wa jahlii wa israafii fii amrii. tan lixaad, rabbi ighfir lii wa tub calaya innaka anta attawaabu arraxiim. mar kalaan ku celinaa, rabbi ighfir lii wa tub calaya innaka anta attawaabu arraxiim. nabiga markastuu ku celceli jiray taas. tan toddobaad, saxaabiga la yidhaha khabaab ibni arath ayaa nebiga sal alla alay wasalam weydiiyey, wuxuu yaa rasuulallah ii sheeg sideen ku istikfaar u weydiistaa. nebiga sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi, waxaad tidhahaa allahumma ighfir lanaa warxamnaa watub calaynaa innaka anta attawaabu arraxiim. sii tan iyo tan lixaad oo isu ogyihiin nebiga sal alla alay wasalam badi jiray. markaanaan ku celinaa, allahumma ighfir lanaa warxamnaa watub calaynaa innaka anta attawaabu arraxiim. tan sideedaad, nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa saaxiibkiisa abubakar u dardaarmay inuu ataxiyaad walba gadaashiisa aqriyo. waxaa waay, allahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiira walaa yaghfiru الdunuuba ilaa ant faghfir lii maghfiratan min cindika warxamnii innaka anta alghafuuru الraxiim. tan sagaalaadna waxaa waaye, allahuma ighfir lii maa qadamt wamaa akhart wamaa asrart wamaa aclant wamaa anta aclamu bihi minii anta almuqadim wa anta almu'akhir laa ilaaha ilaa ant. tan ugu dambayso oo inta assalaamu calaykum salaada ka bixin la aqrista waaye. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. تنتو بناضو وقدم بيس وحاواي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نبي صلى الله عليه وسلم يقول في استغفار تاس مركز إله ويدي 6 مرة maalintii dembigiisa waa la dhaafaa. xataa hadduu muslimiinta dagaal ku jirto aaga soo cararo, tawalli yawm zaxf waa dembiyada waaweyn waaye. tan tobanaad si fiican u muhiimta xifdi waana fududahay. astaghfirullah alcadiim alladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum wa atuubu ilayh. ugu dambayntii walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa noo weydiinaa dembigeena inuu dhaafo, dembiga waalidiinteena inuu dhaafo, muslimiinta dhanna inuu ilaahay u dembi dhaafo. waxaan idiinku daraa hal xabo oo hal nuuc oo istikfaarta ah uu nebiga sala allahu calayhi wasalam aad u ammaanay. uu yidhi qofkii aqriya istikfaartaas jannuuba galaabo. qofka hadduu rabo inuu istikfaar sameeyo ama ilaahay dembi dhaaf weydiisto, sida ugu fiican uu ilaahay dembi dhaaf ku weydiisanayo waa maxay?
أما وح أو في عن وده كرو محي استغفار تي أو فضل في عن النبي صلى الله عليه وسلم أيا إنو شيء وحير سيد الاستغفار سيد متقانا وماشى أو الرئيس ابن آدم كوحي ليه سيد معنى هذا أوجاز كذا أما مدحويني هذا أما ماشى أو الرئيس سيد الاستغفار استغفارتا سيد كذا وحاوى الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أقريه أرنتها النبي صلى الله عليه وسلم وحويري قفكي أقري استغفارتا هذا إلين شيء دونه أسيقو معنى هذا يقانو يقين سن أكوحو كهدلايو هدو صبحي أقريو إلى قلبت انتي لقارن هبينك انتي لقارن هدو دنتو وأهل الجنة قلبتي هدو أقرياني صبحي انتا لقارن هدو دنتاني وأهل الجنة نبي صلى الله عليه وسلم وحونو شيء مركا لبا وقت إن لا أقريو سيلو أقريا أديقو يقين سن هدا صبحي أقرسيت أديقو يقين سن قلبتي أقرسيت أديقو يقين سن أهل الجنة لك صعداتها دعاء سفي عن أدقيسو حفظي ولا لها كلاني لشير قريب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معنى هذا سيقابل هدانكو وشيغا وحا لهذا إلهيو أذيق ربي قاتحي وادي أبورتي أنا أدون كاغا أحي أذاي أبورت أدون كاغا أحي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت عهدك يبلنتي أن كاقاذ أيام كجيرا إنتان كأوذو وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت إلهي حمان كستو أن سمي شرطي ذو كامل قالي أبوء لك بنعمتك علي نعمة ذا السيسين واقرا إلهي وأبوء بذنبي ذنبي كان سمي ما هو البصمين إله واقرا انت اسمرك قرا وحلاله فاغفر لي إله إي ذنب داف فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قف ذنب داف ومجر أو أذيق إهيني إله إي ذنب داف أقول ذنبينتي ولا ليال الله سبحانه وتعالى وحاوي دي سنينا ذنبينا إي ذنبي والدين تاني إي ذنبي إنتان جعلنا إي مسلمين تبا إنه إله دافو أهل الجنة نقدقو نار تنقبت باذيو دعاء حفظي كو عمل فل ولا لها كلاني وسي قدبي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.